madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Dammam ee dalka Sacuudiga halkaas oo maalinta bari uu ka furmayo shirka 29aad ee Jaamacadda Carabta kaas oo uu madaxweynuhu ka qayb galayo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ka soo kacay magaalada Muqdisho waxaanan soo gaarnay haatan magaalada Dammam oo bari uu ka furmi doono shir madaxeedka 29aad ee dalalka ku bahway Jaamacadda Carabta. ajendayaasha shirka aad u fara badan yihiin waana kuwa khuseeya dalalka ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya qayb ka tahay. shirka oo bari furmi doona waxaa ka horeeyay shirkii golaha wasiirada oo wasiirkan arrimaha dibadda Axmed Ciise Caawud uu ka qayb galay kaas oo lagu lafaguray ajendayaasha shirka lagu dhameystiri doona. kasoo shirka Jaamacadda Carabta madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu wadaa in kulamo kala duwan uu la yeesho qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka Carabta ee ka qayb galaya shirkan kuwaas oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha iskaashiga iyo xiriirka. shirkan Jaamacadda Carabta ee sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo dalalka qaar ee Jaamacadda Carabta uu ka dhaxeeyo muran dhanka siyaasadda halka qaar kale oo ka mid ah dalalkaas Carbeedna ay la dhibaataysan yihiin faragelin dhanka dibadda uga timid. Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa sanadkan shirka iyadoo inta badan meel iska dhigtay muranada siyaasadda ee hareeyay qaar ka mid ah wadamada Carabta. Ali Baashi Cabdullaahi magaalada Dammam ee dalka Sacuudi Arabiya.